waxaa igu wallaahi ah igu billaahi ah igu tallaahi ah oo aan magaca ilaahay ugu dhaaranayaa in aan u guto xilkayga si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka iyo diintuba dhowraayana dastuurka iyo shuruucda kale ee u degsan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wabilaahi tawfiiq sharafay noo tahay inaan maanta aan ilaahayna waafajiyo goobjoogna aan u ahaano dhaartii dastuurka ahayd ee la dhaarinayo guddoomiyaha cusub ee gobolka Baay marka ugu horeyso mudane guddoomiye hambalyo mas-uuliyad culus yaada lagu dhiibay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay kuu fududeeyo sida xaqa iyo cadaaladda ku jirta iyo dowladnimadana uu ilaahay ku waafajiyo waxaan aaminsanahay nin dhalinyaro ah oo xilal badanna soo qabtay aqoon-yahanna ah waajibkaasna markii aan tala badan suubinay qaban karo gudan karo inaad tahay marka annagana garab aan kugu nahay waa insha allahu tacaala waxaan kaa rajaynaynaa inaad siday tahay u gudatid waad og tahay mushkiladda gobolka aad guddoomiyaha ka tahay haysato adiga oo mas-uuliyadda ugu weyna gobolka ay ku saaran tahay amnigeeda iyo horumarkeeda iyo dib u dhiskeedaba intaba mas-uulka ugu sarreeyo gobolka aad tahay inaad sida ay tahay u gudan doontid gobolka waa 5 degmo degmooyinkaas oo dhanna aad tegi doontid oo ka warqabi doontid dadka sida ay ku soo dhaweeyeen ay kugu farxeen oo la shaqaysid insha Allah mas-uuliyadda waxay u baahan tahay sida qofka loogu dhiibay iyo sida loo dhaariyay sida ay tahay haddii u guto oo ilaahay hortiisa uu qalbi fiicnaan iyo daacadnimo uu la yimaado inta kale wuxuu u helayaa inay u fududaato ilaahay baa u fududeynaa hadduu laakiin dhinaca xun uu ka bilaabo oo uu marka horeba sidii loogu dhiibay iyo sidii loo dhaariyey si aan ahayn uu aaminsan yahay ilaahay talada waa mas-uuliyaddii la dhiibay waa garab maraysaa marka kii ay garab marto oo ku khasaaro ilaahay kaama dhigo waxaan kugula talinaynaa dadka iyo bulshada gobolka Baay inaad si hoose aad ula socotid oo aad u dhex gashid waxyaalaha jira iyo baahiyaha iyo wixii loo baahan yahay dhinac kastaba aad nin ka warhayo aad noqotid sidaasoo kale mas-uuliyadda iyo xilka waa qori dhiib ninba maalin uu haynayaa qof geed ka baxay oo iska taagnaanaya ma jiro qofba waqtiguu joogaya qof kasta waqtiguu soo joogayna wuxuu ka tegi doonaa taariikh iyo legacy taariikhdaas iyo sharaftaas uu ka tegayana dee waa la xusi doonaa oo waa la sheegi doonaa guddoomiyihii kaa horreeyey waqti badan uu soo shaqeeyey systemkan 2 sano iyo bar iyo weliba ka badan yuu annaga intaan joognay nala shaqeeyey nin howlkar ah shaqo fiicanna soo qabtay maantana dee taariikh fiican ka tegay laguna xasuusan karo deegaanka guddoomiyihii gobolka muxuu qabtay la dhihi karo la sheegi karo oo ahaa oo karnimana ku caan baxay waxyaalaha sida goonida ah lagu ammaano oo looga sheekeeyana waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha gobolka dhismaha jidadka iyo bilicda magaalada Baydhabo sidaasoo kale adigana waxaan rabnaa inaad tiina aad dhamaystirtid mashruuc kaloo cusub oo adigana aad ku caan baxda adigana inaad keentid oo jidadka
intii hadda dhiman iyo bilicda magaaladana la dhammaystiro. Markii la yidhaaho berita lagaa qaado meesha ama aad ka tagtid, la yidhaaho Cumar Balashna wuxuu ku fiicnaa sida hadda guddoomiyahan u sheegnay howlkarnimadiisa iyo taariikhda fiican oo lagu soo xasuusto iyo bilicda magaalada suu u soo celiyey. xitaa dadkii say ugu faraxsanaayeen waagii la bilaabayo waa la qasbayay, laakiin maanta ayagaa gurigooda ugu tagayo dhahay kaalay noo sameyn markay arkeen wanaagga in jidadka la sameeyo ah. guri 20,000 lagu la'aa yaa beeciisii 200,000 gaaray markii jidka loo sameeyey. guri amni xumo lala geli lahaa yaa amni helay markii jidadka loo suugay. marka waxyaalaha faa'iidada ugu badan oo jidadka ay leedahay waxaa waaye amniga qaybka, horumarka qaybka, dhaqaalaha qaybka, wax walbaba ay u tahay. bilicda iyo quruxda qayb ay ka tahay. marka adigana waxaan rajaynaynaa mashruucii asaga ahaana inaad dhammaystirtid. wax badan oo u baahan yahay gobolka Bayna oo cusub oo lagu xasuustana inaad kusoo kordhisid oo kusoo dari doontaan jecelna insha Allah. mar labaad iyo mar saddexaad waa ku hambalyeynayna dadkan dhalinyarada oo wasiirka arrimaha gudaha ugu horeeyo. waxay ku faraxsan yihiin dadkii tala soo jeedintaada keenay bay ahaayeen inaad noqotid guddoomiyaha gobolka. guddoomiyihii gobolkii hore shaqo xumo looma bedelin, laakiin shaqada sidaan hore u sheegay yaa waxay ku fiican tahay isbedbedel qori isku dhiib waaye ninba talada cusub iyo dhiigga cusub